xaruntaani oo ah xarun weyn oo lagu talagalay in lagu barto cilmiga beeraha kalluunka iyo xoolaha ayaa laga dhagax dhigay duleedka magaalada Dhuusamareeb waxaana ka qayb galay madaxa golaha wasiirada dowlad goboleedka Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan wasiirro ka tirsan maamulka Galmudug maamulka caasimadda iyo mas'uuliyiin kale ugu horeyntii gudoomiyaha magaalada Dhuusamareeb ahna duqa caasimadda Galmudug Nuur Cilmi Cabdulle oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inay aad u soo dhaweynayaan dhismaha xaruntaani isla markaasina waxa uu baaq u diray qurbo joogta iyo ganacsatada deegaanada Galmudug in ay maal gashadaan dhulkooda waxa sidoo kale halkaasi ka hadlay mid kamid ah ganacsatada dhismahani fulinaya aad baan ugu faraxsanahay halkaan galabtay mashaariicdaana way naga maqneed insha Allah waana ka shaqeyn doonaa inaynu hirgasho bulshada Galmudug waxaan leenahay waa nicmo u soo siyaaday waana ka faa'iideysan doonaa insha Allah waxaan rabnaa insha Allah waa la dhagax dhigay insha Allah waa noo dhamaan doontaa waana laga dhabay doonaa annaguna insha Allah wadana maamulka caasimadda dhulka loogu talagalay iyo bulshada maxaan ku iraahdaa ka faa'iideysanaysa iyo shaqo kasta oo naga khusaysa oo maxaan ku iraahdaa aan leenahay waan qaban doonaa hadii la yiraahdo amniga qaybta aan ku leenahay horumarka qaybta aan ku leenahay la shaqaynta kambaniga loogu talagalay barnaamijka inuu qabto aqoon-yahanada Galmudugna waxaan leenahay imaada Madiina wuxuu qabtaa waxna ka qabsada insha Allah rajada aan qabnaa waxa weeyaan muddo gaaban gudeed dadka Soomaaliyeed hadda waxay u hayaamaan magaalooyin oo miyiga laga hayaama muddo gaaban gudeed waxaan rajaynaynaa dadka Soomaaliyeed inay magaalooyin ka soo hayaamaan oo ay miyiga u soo shaqo tagaan ayaan mar dhow rajaynaynaa hadii la idmo waana meesha aan isleenahay waa meesha Soomaaliya ay ka qaldantay waayo shaqadu waxay taala waa miyiga waa beerta iyo xoolaha iyo kalluunka magaalada shaqa ma taal marka waxaan rajaynaynaa inaan dib u soo celino meeshii saxda ahayd ee loo baahnaa dadka Soomaaliyeed oo hayaamaan shaqadana ka abuuraan noloshana ka abuuraan ugu dambeyntii madaxa xukuumadda dowlad goboleedka Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo gabagabadii ka hadlay munaasabadda dhagax dhigga xaruntaani ayaa sheegay inay muhiim tahay fulinta mashruucaani waxa uu sheegay inay qayb ka qaadan doonto horumarinta xoolaha iyo miyiga iyo sidoo kale kalluunka waa arrin aad iyo aad loogu farxo inaan halkaan maanta ka dhagax dhigno beer qaybo badan ka kooban oo wax lagu qabanayo bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada Galmudug runtii inta ay ka dhawaajiyeen professorada arrimahan takhasuskeeda leh oo muddo badan ka soo shaqaynayay in areadan laga shaqeeyo oo beera laga tabco oo iskuulo laga sameeyo oo jaamacada laga furo baadiyaha loo soo aado waxbarashadii iyo tabciga adduunyada haddii ay tahay xagga beeraha haddii ay tahay xagga xoolaha hadday tahay xagga kalluunka runtii waxa weeye arrin higsi mudan waaye oo aad iyo aad u wanaagsan oo aan runtii aad iyo aad aan u bogaajinayno ka shaqaynta arrintaas aana isku gacan siinayno siday u hirgeli lahayd waa horseed wanaagsan waxaan rajaynaynaa in ay noo hirgasha ayaan rajaynaynaa xaruntaani ayaa qayb ka qaadan doonta in la xoojiyo tayada xoolaha beeraha iyo sidoo kale kalluunka ee deegaanada maamulka Galmudug Daahir Maxamuud Cabdi Daahir Yare dalka TV Dhuusamareeb